Bismillahirrahmanirrahiim. Maanta cashirkeena Excel wuxuu ku saabsan yahay sida aad saacadaha aad u xisaabin karto daqiiqadaha ama hur du snabbt räknar om timmar till minuter i Excel. Marka tusaale halkan ayaan ku haysanaa. Marka hore waxaad ogaataa n,25 halka waxaa noogu qoran antal timmar och hur många minuter är 2. Marka hal dhibic 25 saacadood waxaad ogaataa waxaa weeyaan markii loo bedelay minute waa un hal. Marka tusaalaha ayaan tusayaa. Lika med av korta parentes och 2 parentes. Marka sidaad arkaysiin hal ayaa noqotay, ama tusaale kaleeto haddii aad 3,999 oo kale aad qortid 3 bay noqonaysaa, ama aad qortid 4,899 intuu waxaa isla imaanaysa 4. Marka tusaalaha maanta la ku haysano waxaa waaye 1,25 saacadood. Marka si aan u xisaabino snabbt daqiiqadaha, tusaale ahaan 40 saacadood intay noqonayso daqiiqadaha, halkaas ayaad ku dhufanaysaa. Waxaad leedahay lika med parentes av korta parentes av 2 xiraysa haddana parentes gånger 60 parentes plus parentes A2 minus korta parentes ska det ta A2 parentes gånger 60 parentes. Marka 1,25 inta ay noqotaan fiirinayna waxay noqotay 75 minuter. Yani waxa way hal saac iyo waxyaalo. Marka waxay noqotay 75 minuter. Haddaan dhan halkaas 40 saacadood inta ay noqonayso minuterka ama inta daqiiqada ay noqonayso waxay noqotay 2,400 oo daqiiqadood. Haddaan dhahan 12,45 waxay noqotay 747 minuter. Marka sida loo xisaabiyo snabbt timmar till minut i Excel waa muhiim weyn marka shaqooyinka la joogo in la fahmo. Aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullah.